xabsi inuu ku jiro oo ku daa'imo xaq u leeyahay oo la maxkamadeeyo ayuu xaq u leeyahay waayo genocide buu sameeyay xasuuq buu sameeyay bini'aadanimo ama sarkaal ha noqdo ama askar ha noqdo ama odayaasha gorxashaaga oo 8 jirado ilaahay ka fogaaday oo meesha ku xiran ha noqdeen dad genocide sameeyay xasuuq sameeyay weey dad loo baholiyo ma in labada maamul dhiibli u wada hadlaan iyagoo laba maamul ah baa wacan oo Cabdiraxmaan Ciro madaxweynaha Soomaaliland uu aamino inuu firdhiyo la hadlo aan loo kala wadayn ama dalalka dariska ay isugu yimaadeen ama ogiyo aynaba dhexdooda isugu yimaadeen maxaa sanka feerka looga hayaa jinka idin boqoray ee idinkana idin yiri dawlad baad tihiin anana dawlad ma nihin aad idin yiri muxuu ahaa anigoo ah afhayeenka uqaasha deegaamada SSC Chief Aqal Maxamed Chief Aqal Cabdi Jaamaala waxaan saaka shirkaygan jiray daaran yahay dhowr kalmadood oo bulshada SSC iyo deegaamada la dariska u jeedinayo aan rajeynayo Allah inuu subhanahu wa ta'ala ku anfaco ugu horeyn horta marka horeysa waxaan ugu baaqayaa culimada farqiyadeeda kala duwan dhammaan culimada Soomaaliyeed oo dhan inta leeyihiin farqiyadeeda iyo faniyadeeda kala duwan in roob doon caam ah la sameeyo oo masaajidada dhan laga sameeyo roob doon caan ah laga sameeyo oo hadii alla ku run yahay maanta meel Soomaaliya ay ka masaajid madrasad badan tahay ma jirto maalin ay ka culimo badan tahay ma jirto hal masaajid oo roob doon laga qaadayana ma jiro garan maayo goorta dadkii qanaacadkiisa uga dhamaaday oo dadkii qalbigoodiisa u qalalay ma garan karaan boqol firqo culimo ah jira masaajid qara oo lagu qunuudaya ma jiro masaajid qoro roob doon laga akhriyaa ma jiro banaanka loo soo bixi maayo ardadii qalleefteed la soo saari maayo dadkii alla hadii la ku roon yahay muxsiniinta la soo saari maayo waxaan leeyahay waqti adag baa lagu jiraa dadkii baadiyaha iyo dadkii magaaladu waa dhiman yihiin dadka sii dhiman oo dadkii baadiyaha joogay dhibaato haysata kulli ciqaab ilaahayna wuu jiraa Soomaalidu iska haysta dhiigan bini'aadanka la daadinayo iyo hadii bini'aadanka leeyahay marxaladaha lagu jiraa ma ay wacna marka waxaan leeyahay roob doon hal akhriyo oo ilaahay hal weydiisto naxariis hal weydiisto taa intaasan kaga gudbiya qodobka labaad ee raaca waxa weeye aan maanta isna halkan ka cadeynaya dadka soo guuray khaasatan deegaamada SSC ku soo guuray khaasatan gobolka Cayna Buuhoodle ku soo guuray ama gobolka Buuhoodle ku soo guuray ama bari ha ka yimaadeen ama galbeed ha ka yimaadeen dadkaana in si wacan loo tacaamilo oo hadii alla ku run yahay ilaahay meel kasta waa jooga bari iyo rabo shibi kara in dadkaas si wacan loo tacaamilo oo si wacan loo soo dhaweeyo oo dib aan loo geysan waxa kale oo qodobka saddexaad uu yahay deegaamadan ku teedsan galbeedka ka xiga gobolka Buuhoodle gobolka Cayn ee Buuhoodle waxa ka dhacay falal gaada ah oo aan ilaahay agtiisa ku wacnayn oo aan fiicneen laga soo bilaabo Shangeed Xariiranka ilaa iyo inta u dhaxaysa boqordarkeen iyo yeelay deegaamada dadka ku teedsan ee habar jacayl u baahantay inta ay leeyihiin ama Solomada u reer Buuhoodle waxaan leeyahay joojiya gaadaha oo ilaahayna ka baqa Solomada u reer Buuhoodle quramaha habar jacayl u baahantay waxaan leeyahay joojiya gaadaha nugaalba waa ka jiray war joojiya gaadaha war qof islaama oo reer miyiga oo maxarashoonka jooga oo ari yar hawa wara wata ama hala wata dhiigiisa ilaahay kuma banayn waa khalad gaadaha la joojiyo wixii dhacay horeyna ha laga wada hadlo gaadahana ha la joojiyo qof walba qofka soo dilay sawaabtiga ayaan abtiga waa habrgadaaga waa in adeerka gaadaha ha la joojiyo taana intaasan kaga baxaya waxaan beesha habar jecel mar kale ugu baaqayaa nabadgelyo ee dariska ah iyo beelaha iyo doore kalaba bal kuwa kale isma soo gaarnay habar jecel waxaan leeyahay war ay hadee badankeeda leeyahay nabadgelyo iyo habar yoonisba waxaan leeyahay nabadgelyo habar jecel waxaan leeyahay iyo doorka dhulbaxantayni kama nacba intiisa kale idinka iska fogeeyay tiyo marka wax dhacaan u baad wax istaagaysan xaraadii 250 istaagaysa marka waxaan leeyahay abti nasta askarigu marka uu salaanta ku raago nasaba la yiraahdo abti nasta habar jecel nasta gurihiina jooga nasta xagga siyaasadda iyo maamulada laba maamul baynu kala waqooyi bari SSC waxaanu kala Soomaaliland laakiin dad darisaynu nahay gobolada waqooyi baynu nahay dad darisaynu nahay laakiin laba maamul baynu kala nahay abti al marka nasta dhibaatada joojiya kuwana waxaan leeyahay dhibaatada joojiya taana intaas kaga baxaya maxaabiis labada dhinac lagu kala haysto
ay kala haystaan SSC iyo Somaliland maxaabiista dagaal baa lagu qabtay iyagoo quraan akhriya lama qaban iyagoo dagaal baa lagu qabtay haba kala badnaadeen maxaabiista hadalkeedu in badan media ku soo noqday horta marka hore waa nasiib darro in dal ku soo duulay dal iyo dad ku soo duulay oo isagoo xabad ridaya la qabtay oo inta la wacdiyay hal sano lalaha dagaalka jooji oo naga tag diiday oo ilaahay muslimkiisa diiday in loo bahliyooba waa xaraan oo la yiraahdo dad baa la hayaa had iyo goor oo qeyr jabaan la soo yimaada waa xaraan xabsi inuu ku jiro oo ku daa'imo xaq u leeyahay oo la maxkamadeeyo ayuu xaq u leeyahay waayo genocide buu sameeyay xasuuq buu sameeyay bini'aadanimo ama sarkaal ha noqdo ama askar ha noqdo ama odayaasha gorxashaaga oo 8 jirado ilaahay ka fogaaday oo meesha ku xiran ha noqdeen dad genocide sameeyay xasuuq sameeyay weey dad loo bahliyo ma waa khalad cid oo bahliyo bas cid ka hadlaysa hase ahaatee haddii mar naftoodii ayna dhammaan oo xilligii wax la dilaayay ayna naftoodii dhammaanin oo tii ilaahay uuna ka dhigin waa in la sugo xilliga la soo daayo in lagu tasbiixsado mar meel laga mara ma aha xilliga ay ahaato waa in la sugaa marka iyagana xilligooda hal la sugo cidna dili mayso gobonimo ku nool yihiin waxaan aaminsanahay marxaladii ku jireen askarinimo iyo xasuuqa ku jireen in jeelkay ku xariisan u dhaanto waqtigooda hal la sugo maxaabiis in la kala wareejiyo wax badan baa ka horeysa nabadgelyada in la saxaaba ka horeysa in waxa la yiraahdaa qoraal la kala sameystaa ka horeysa in labada maamul dhiibli u wada hadlaan iyagoo laba maamul ah baa wacan oo Cabdiraxmaan Ciro madaxweynaha Somaliland uu aamino inuu firdhiyo la hadlo aan loo kala wadayn ama dalalka dariska ay isugu yimaadeen ama ogiyo aynaba dhexdooda ay isugu yimaadeen maxaa sanka feerka looga hayaa jinka idin boqoray ee idinkana idin yiri dawlad baad tihiin anana dawlad ma nihin aad idin yiri muxuu ahaa waa labada xaaji kala qabto way arintu labada xaaji kala qabto arintu way taana waxa leeyahay lagu soo dhawaado maxaabiistana haddii alla ku roon yahay xilliga ay toobanaato ee ilaahay qadartiisa uu ka dhigo ilaahay xukunkiisa ka dhigo baa la kala wareejin laakiin waa maxaabiist dagaal lagu qabtay haddii jeel ku sii dheeraado hadduu ku dhawaadaba yaan lala yaabi waa salasi doonaa ilaahay marka uu garto taana intaasan kaga baxaya waxa kale oo jirta oo aan maanta ka hadlaya iftiiminaya xasarad had iyo goor xagga meediyaha u dhaxaysa labada maamul ee Puntland iyo SSC waqooyi bari xasaradaas waxa inta badan wada dad haddii alla ku run yahay wax magarata ah oo social media isticmaala oo dadka kala fogeynaya oo harti kala fogeynaya oo aan aaminsanahay qaar meel laga soo tuuray oo galbeed laga soo tuuray inay ku jiraan oo khayr daran oo haddii bidikeeda leeyahay ku gabanaya inay jiraan marka waxaan leeyahay xasaradan hal la joojiyo haddii madaxda Puntland qaybteed ay u xagliso cid aad haysaan waxba dhib ma ay laho oo haddii bidikeeda leeyahay duruufo uun baa loo galay bay la tahay shacabka Puntland shacabka Puntland iyo jooga SSC waa isku mid haddii dhibaato dhacdo ilaahu dhibaato dambe inagu soo celiyo dhig Soomaaliyeed ma doonayne haday dhibaato dhacdo galinka hore haday dhacdo dambe kula jooga taana intaasan leeyahay hal lagaga hal la joojiyo xasarada kala soo dhaweynaya baaq nabadeed oo shalay beelaha habar jala gaar ahaan degmada Qoorlugud ay jeedisay oo ay hadii alla ku roon yahay ka haleelsan nabadgelyada waa muhiim nabadgelyadu nina nabadgelyo kama weyna nabadgelyada laga wada shaqeeyo xaggaana laga shaqeeyo xaggana laga shaqeeyo cuqaashi iyo culimadii iyo dhalinyaradii iyo haweenkii nabadda u soo mabaxay ee ka hadlay Qoorlugudna runtii aad baan u soo dhaweynaya taana intaasan kaga baxaya waxaan kale oo iyana maanta in halkan ka iftiiminaya dawladda federaalka ee Soomaaliya xamar fadhigeedu yahay uu madaxweyne Xasan ka yahay madaxweynaha waxaan ugu baaqayaa iyaduna inay dadka Soomaaliyeed si siman oo cadaalad ah u maamusho beelaha Soomaaliyeedna ayna kala geen oo inay isku mashquulin beela qura inay kala fogeyso fulaxantii ma oga waxa dawladda lagu xantaa hadiyo goornay beelaha D5 kala fogeyso oo cidda imika ay buufinaysa kala fogeynaysa beelaha Daarood Ismaaciil yihiin anigu waxa ma qariyaan beelaha Daarood Ismaaciil inay kala fogeynaysa lagu xantaa dawladda federaalka ee Xasan Maxamuud ka yahay madaxweynaha
waxaad ku garan kartaa gada dagaal bay ka bilowday Puntland xasaraday ka bilowday gudaheeda xasarada Puntland iyo siiba ka bilowday waxaad moodaa in awoodda koobaad iska fiirinaysa ay tahay beelaha daarood marka waxaan ku leenahay xasan oo daarood hadda wada Soomaali weey daaroodna saa kuma mashquulayo ismana haysto waxna kama dhaxeeyaan waa dad tolo Soomaaliyeed waa laf dhabarta Soomaaliyeed waa landheeraha Soomaaliyeed waa dadka Soomaali goobnimada maanta ay hadsanayso daarood baa keenay daarood hadduu Soomaali lahayn lama arkeenba taana intaasaan kaga baxaya waxaan kale oo iyadana aan soo taabanaya maamulka ICC waqooyi bariya cusub oo nasiibka u yeeshay firdhiya inuu mar labaad ka noqdo madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweynuhu wuxuu sugayay oo imika 6 bilood ama 3 bilood 100 habeenay u jaamgaraysan tahay shaqadii maamulka Caleema Saar madaxweyne waxaan ku leenahay Caleema Saarkii hadii uu suuroobi waayay shaqada dawladda u taala way farabadan tahay shaqo badan baa maamulka u yaala shacabku waa ku garab taagan yahay hadii badankeeda leeyahay waxba lagu saxayaa marka shaqadii inoo taalay timetable-kii inoo yaalay iyo shaqo maalmeedkii inoo yaalay ha lagu dhaqaaqo dalka iyo dadkaba ha loo shaqeeyo hadii alla ku ron yahay Caleema Saarku hadii alla ku ron yahay Soomaalida imika politicianal waxa Caleema Saara baa imika dhaqankan politicianal kala Caleema Saarayo dhawaan baa la bartay markii hore traditional kama dhaqanka la Caleema Saari jiray laakiin anigu waxaan aaminsanahay hadii uu Caleema Saarkii dib u dhacay in shaqada Caleema Saarkii hadii uu ama ha suuroobayeen in shaqadii dawladda uu taalay la qabto la dhaqaajiyo oo la dardargeliyo meelahaasan taana kaga baxaya waxaan talageliyo mar labaad talageliyo siinaya dawladda ICC maamulka waqooyi bari talageliyadaas oo ah hadii badankeeda leeyahay mid munaasib oo xilligeedii joogta waxay taladaas ku saabsan tahay dadkan dhib badan baa loo soo maray kumanaan kun oo wiil baa u dhintay oo luqun dheer kumanaan kun oo hooyo ku caruurtoodii ragoodii ku waayay kumanaan kun oo hablood baa ragoodii ku waayay waxa loo baahan yahay dadka midnimadiisa in la isku wado waxa aad loogu dad midnimadu waa base-ka nolosha ka bilaabmato hadii midnimo la waayo wax jiray ama jiraan inaan maamulka gudihiisa khilaaf ka jirin inaan maamulka guruuba kala yeelan oo traditional iyo politicianal toona cidna uu soo dhaweysan madaxda dhaqanka iyo kuwa siyaasiga ah kuwana uu soo dhaweyn kuwana banaanka u saarin taasaan kula dardaarmaya guruubaysigu waa wixii hore dhulbahantay wax ka qaribay hadii guruubaysi yimaado waxba suuroobi maayaan guruubaysi inaga ilaaliya wax guruubaysi leeyahay jirin dadka isku ol hal lagu kaxeeyo hadii guruubaysi yimaado dhibaato ay imaanaysaa laba qodob oo aan hore u soo maray qodob waa gaadaha la joojiyo war ilaahay ka baqa war islaam hadaatiin habar jecel baahantoo gaadaha joojiyo oo dadka islaamka leenayaa la joojiyo meel laga qaban karo marasay wixii dhacay hore laga wada hadlo gaadaha la joojiyo oo gabadh waliba inankeeda waayeen iyo odageeda waxaan kaloo ku soo gabagabeenayaa nabadgelyada darsidan ha laga shaqeeyo labada qolobaha ka shaqeeyeen dhulbahantiya habar jeclaba waxaan kaloo iyana ku soo gabagabeenayaa ilaahay waxaynu ka baryanaa raxmad iyo roob iyo nabadgelyo iyo isu socod iyo dalkii dadku isu furma iyo maamulada wada shaqeeya in ilaahay ka baryana ilaahay waxaynu ka baryanaa dadku wuu dhiban yahay ilaahayow raxmadna sii ilaahu roobna sii ilaahayow roobna sii oo raxmadna sii ilaahayow dadkaaga dhan meel kasta uu joogo roob mutawafaqa oo gaadho ilaahuna sii alxamdulilaahi rabbil caalamiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh